الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله حافظة دقمة كحظة ما أنت خطبة كنت كني أبو حمو فرح سنة هي سيدا اهتمام كله موضوع عن كهل لينينا أدبريهم وشقين يسين وحمانته مركو عن هالكانوا ماضي أو خطبة أنا آخرنا هي خطبة يو صلاة أن تكني إنه كذب inaan ogeysiis isu sheegno ogeysiiskaas oo ah arin kulligeen dan inoo wada ah oo mudana aan ku taamaynay oo ah wadadan degmada kaxda inaan dhisano wada laami ah oo duruufta hadda aan ku jirno iyo bacaadka iyo jidadkan go'ay aan uga baxno arintaas ayada waqti ay soo socotay waxaan filayaa masaajidkan ayaan markii aan bilaabaynay qabanqaabada muddo hadda laga joogo sanad iyo ka badan ayaa halkan kaga dhawaaqnay dadka qaarkii waxa laga yaabaa muddadaas dheer inay u qaateen hadal iska yiri oo meesha isaga dhamaaday garna way u leeyihiin duruufta wadanka ka jirta iyo waxay arki jireen ayaa saas u badan marka la yaab ma leh laakiin qofka iijaabiga la yiraahdo ama qofka yaani dhinaca fiican waxa ka fiiriya ma yaqaano inuu quusto oo hadii ay dhibaatooyin iyo caqabado ka hor imaadaan inuu yiraahdo waxaan iska dhaafno quraanka waxa ku jira suurado magacyo waxay wataan xasharaad yar yar ah oo magacoodi loo bixiyay waxa kamid ah suurad la yiraahdo suuratu nahl suuradii shinnida suurad wax kale waxa la yiraahdo suuratu naml suuradii quraanjada maxay idin la tahay magacaas iskama bixinin suuratu nahlina waxa ku jira qorshe ah sida wax loo dhisto oo injineernimada casriga hadda jirta guriyaha loo dhiso sida ugu fiican ayay shinnidu wax u dhisataa markaas ka barta qorshaha iyo shinnidaas bin aadamu waxba la idin ku tusinay ku cibar qaata wa waxa rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli ath-thamarati fasluki subula rabbiki dulalan ila akhir al-ayat dhanka kala suuratu namlina waxay qorshaaydan u tahay quraanjadu dadaalka iyo sabirka quraanjada waad aragtay mararka qaarkood waxay rabtaa inay safiitada fuusho darbiga ku soconaysa markay safiitada wax yar u jirto ay soo dhacaysaa iskama tagayso albaabka ma baxayso safiitada waa inay ku noqoto haddana way ku noqonaysaa say ugu noqonayso marka waxa la arki doonaa ayadoo safiitadii ku socotay isla adigii baa arki muddo ka bacdi inta hawlo kala qabsatay quraanjada oo safiitada saaran jaasina maxay ku toosaysaa israarka iyo ku adkaysiga iyo hawl in la qabsado oo suuratu naml waxa loogu bixiyay hatta ida ataw ala wadi naml qalat namlatun ya ayuha an-naml udkhulu masakinakum la yahdimanakum sulayman yaani badbaado iyo dadkeedu ay ka fikirto suuratu naml la yiraahdaa marka taas waxa uu la jeedaa in muddo dheer ay hawshan qorsheeda ku jirnay niyad jabaysa in ku ridin way hadii waxooga dadka qaad iska niyad jabaana waa la soo kicinaa dib male markii ghazwul ahzab la jabay yaa waxa la soo galay suuqa nabigiina waa la dilay asxaabti qaar kamid ah waxay dhaheen nabiga hadii la dilay maxaan meesha ka qabanayna ma iska kala tagno nin walba reerkiis mu iska aado nabigiina uu isku hayay inuu iimaanay hadii la dilay halkaas ay sheekadu ku dhantaay ma iska kala tagno waa niyad jab dhacay qaar waxay yiraahdeen lama hubo hadda nabiga in la dilay laakiin haday dhacday in la dilayba ka soo qaad waxa la idin rabaa wixii nabigu uu ku dhintay in ay idin ku daba dhimataan oo hor niyad adayg uga sii qaadaan oo hore u socotaan marka taas waa hor dhaco barnaamijkii aan wadnay ayaan hor dhaco si sameynaya waxaan rabaa marka inaad ogeysiisaan ku sheego waxaan soo wadnaba suufi xanji waxaan isku gulidnaba xaga ka soo celi wax la soo celiyada waxaan rabaa hawsha inaan hortiina soo dhigo oo aan hawsha halkaas ay maraysaa hogaanka sidii dhagaxii oo kacbada barigi oo la dhisay oo dad inta isku khilaafeen ana meesha saaraay nabiga xigmadiisa uu ku yiri maro intii la fidiyo dhagaxa korka laga saaro xajir aswadka oo dhinacyada la isla qabto kadibna meeshiisi hal la saaro laamiga aan rabnaa inaan dhisnaa maradii ayaa maanta ii fidsan qof walba inaad dhinacaaga ka qabato ma ku ballanaa ballan ma tahay arintaas ayada Allahu akbar wa lillahi alhamd hada umma santihin haduu ilaahi yiraahdo bisha kowdeeda bisha maanta
oo November waa 27 December kowdeeda meeqa inaga xigta 3 bari waxay ku aadan tahay maanta waa Jimce sabtida axadda isniinta talaadada kowdeeda Soomaaliya ani waxa laga yaqaanaa maalinta talaadada ah cagaf caafiyadii jidkan dhisaayay inaan halkaan degmada horteeda isugu keeno idinkana waxa ay ka rabaa markaan meesha isugu keeno oo carrada indhaha idin ka gasho lacagtii carrada indhaha idin ka gelisay inaad iska bixisaan oo yaa iska bixin way macnaha afmaamay waxaan dhahnaa hanfar hooka lamba hindhooshay daboolade macnaha waxa day ciid day kacdo bus day kacdo ninba indhiisu qarsadaa ma inaad indha kale ma qarinaysid balanta taadaad qabsan kadib qof walba duutiisa qabsado dabayshi way ku dhaafaysaa wax ma ku gaaraay laakiin hadaad iswaasho tirada kanaan u dabooli oo kanaan u dabooli taadiya buuxsamays hanfar hooka lamba hindhooshay daboolade marka waxaan ka rabaa qof walba wixii kaga soo aada inuu indhihiisa dhinaciisa ka qabsto kii dhalinyaro ah kii waayeel ah dumarkii caruurtii culimadii kulli dadkoo dhan aan loo kala harin wadankan Soomaaliya xilligii uu dhismaayay ugu horeysay wuxuu ku dhismay waxa la iska wax u qabso xaafadoo dhan intay soo wada baxdo ayaa iskoolaadka iyo isbitaalada la dhisaayay saasa wax lagu noqdaa qisa waxaan soo qaadanay oo Quraanka suuratul Kahfi maalin kasto Jimca waa la akhriyaa marka in la dareeriyo aayadii waxa la rabaa afala yatadabbaruna alquran quraanka in lagu tadabburo la fiiriyo qisa waxaan soo qaadanay qolo waxa jirtay meel waxay deganaayeen laba buurood dhexdooda ah buurtaas waxa soo dhaxmara wadadaas qolo ayaa ka tira badan oo dhibtay way dhici jireen way dilaan way iska degayeen meel ay aadaan male ayagoo iska rafaadsan yaa boqor oo dulqarnayn la yiraahdo oo mu'min ah u imaaday markaas looga turjumay bal xaaladooda mushkiladooda ay sheegteen waxay dhaheen qolo yiraahdo Yaajuuj iyo Maajuuj ayaa mufsiduuna fil ardi dhulkan way haleeyaan dadkay dhacaan dad bay dilaan fahal naj'alu laka kharjan kharash ayaan ku siinaynaa ma ku siinaa xoolo ala an taj'ala baynana wa baynahum radma in aan yaani darbi noo kala dhisto intaasaan ka rabnaa markaas wuxuu ku yiri wuxuu Ilaahay ani xoolo isiiyay ayaan uga maarmaayaa idinka waxaad siinaysaa bimacnaa waxba idinka ma rabo qorshaan aan idin sameeynayo wax aan idinka rabo male ma makanni fihi rabbi khayrun bas waxaan idinka rabaa faaciinuni biquwwatin hawshan aad leedihiin dib bay nagu haysaa yaan la xalinayaa garab igu siiya soo waajib ma marka garab la isku siiyo هيا محان سبينا يدهن ديارنا نجع وتادين شيء ديار منا يهاد هذين فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما إن ندير بقاس بالصوم وماشي أنا يسوع جود بينين أنا يكسم يا بلان إيه إذنكم يكالمين يسين واحد ديار محان سبينا يقولكوا آتوني زبر الحديد برها هلا كانوا بريه الشبكة هلا كانوا برها سي ويهستين لكن وحكم قناة وكلية إن اللي سوى أديو وده كان في الصومالي ده حوله ويهستان أجرنا وين ربان جنينا وشقيستان وين ربان لكن إن الله دياريو ويلكي أي هوش أسكو قبسان لهاين أيا وحوين إيه هذا هوش أنا هنا وحيتها ويلكي هان وحال السلكة يكتلونتا هان تي أيان صوت طلني أنا يو علماء كلا يو أصحاب دقمة يو كل وان سقوط تجني هان تي أيان صوت طلني وحال ذكر مركز إذنك وددويني هي إيه آتوني زبر الحديد بريها الله كانوا بره جيلنا وجيل وحي جوينا وجيل برها نوابر لعقت الوجد نوابر وحبال ينقصوا قري دونا قارنا وواجب وجري أدجنت يكون واجب يسا سيء كوو قال يومه وضد الأمر مركز سفي عن بجاج تيكون أمريكا يسفي عن حتى العقت يكون يران دونتا العقت هذا كاب حيساو مالين يكاب حيسو هذا يدب كوو صون نقول دونتا ماشي العقد بدن كل عجل تبرك العقير دور سنة وصوص عطى الرئيس كره الرعد أو جناس وفر فرمو أو سفرنتو سيادن دريمين أي العقد كوو صون نقول ما كرت بريها الله كناري آتوني زول حد بريها أي كانن وحوري لبدن بورد نحن هذا دربي جاء أنت تذكر صار ساعتين برها بوحية ويذكر صارين حتى إذا ساوى بين السدفين لبدي قر أما لبدي بنعملكم بوحية وحوري هي قال انفخوا أفوف هذانا way afuufeen markay kulleeyeen yahuud hadana laami keena laami ay leekina quraanka laami lagu misheegna day doontaan laami keena leey waa waxa aan ka rabaa laami aan ka rabaa laami keenu dhah laamigi yaa la keenay waa lagu shubay laamigi markii darbigi la simay juuju ma juuju dhinac kale ay mareen dadka ay dhibaan dhinac kale ay jiraan wuxuu sameeyay hawsh markay qabsoontay
in la qiimeeyo tayada ay leedahay hawshan la qabtay ma wax loo dugduugay oo bariis ka kala daadanaysa mise wax rasmi ah marka taasna marka hawsha dhamaato ayaa qiimeynta la galaa wuxuu marka darbiga aan sameeynay bal isku day inaad qodaan ama aad fuushaan haddii intii la qodo uu qodmi karo kuwii laga xiray way soo qodaayaan haddii intay la fuuli karana ayaguna intay soo fuulaan ayaa xagga soo dhacayaan ayuu ku tijaabi qodobal famasda'u an yadharuhu wamastada'u lahu naqba yani mana ayna qodi karin darbigana kameena soo boodi karin wuxuu hawsha meedin dhameeyaha hada rahmatu min rabbi ilaahi ayaa ina waafajiyay marka waxaan masaajidka uga cilaaminayna waxay tahay dadka ahlu khayrka baarlamaankooda waa masaajidada halku dhigiyada aan dhalinyarada iyo barno oo iskoolaadka ku tarbiyeen waxa kamid ah min al-mihrab nantaliqu wa ila al-khayrat nastabiqu mihrabkan ka dhaqaaqayna khayrkan waan u tartamaynaa marka wixii masaajid ilaahi looga dhaqaaqo way barakoobaan maalinta uu inoo dhamaadana haddana raganimaan ku keensanay iyo xoolaan lahayn ma aha hada rahmatu rabbi ilaahi min rabbi ilaahi baa ina waafajiyay nabi sulaymaan markii oo boqoradii balqiisa kursigeedii loo keenay البريقسنا لو كان يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر مركا كل الفضل وحنو علينا إلى الله سبحانه وتعالى مركا دعاء إنه إلهي خير نوقو بالله خير نوقو دميايو إن الله عدي خير كاسي قيب كانوا قناي سنة أم فاتحة وآخرنا دل يدبد أم باق ودرنا نهنا وصدقة جاري كقيب قاتا قفك حمان إيو نجر إيو لجوي كشقينا intaanoo culimo oo masaajidka joogta faatixada ku soo ridaan dib dama loo marka doonay ogaada marka qof walba khayrkana riix shartana duug saasan isku ogna oo khayr inoo ah marka insha Allah taala warshahaas ayaan maanta culimada uga codsaday masaajidka inaan u imaado intaasna aan ku maqnay inaan isku soo aadintii koowaad oo isku soo aadinay asxaabta aan barnaamijkan aan la wadna ee noo bilaabayna ilaahay khayr soo u ducaynaynaa waxaan ku heshiinay bal horta dadku wax badan ay shaki qabeen oo ilaa ay wax ka arkaan shaki baa jire si dadka shakiga looga bixiyo ayagoo kooga hore hadaadan hadda dhiibin waxba lagu bilaabay aan la dhihin bal horta noo bilaaba markaad noo bilowdaan oo dadku ay arkaan hawsha inay socoto hadaan wax keensan weyno meeshii aan ku keensan weynay cagafyadiina ka qaata iska taga marka ballantan ku ballansanaa idin sheega waan bilaabaynaa markaan bilowno degmadaas iyo intaan hadii hortiina cagafyadii hawlihii socda aragidintii wixii ay dhaqaaqdo waxa la rabaa inay bilaabato in la is abaabulo xaafadihii dadweynihii dal iyo dibad meel kasta wax laga keeni karo la isku tashado oo la yiraahdo waa noo sii wadi kartaan hawshii diyaaran idin la nahay socda la dhiiri geliyo hadii laakiin la dhiiri gelin waayo oo intii cafiyad dhinacu maran aan idin la hadlo dhahaye arintii keena oo la kala gudbiyo ma yaani san umaleeyeen ma waasaas waxaan heshiis ku nahay meesha ay saas ku noqoto waan ii soo sheegaynaaye iska taga Soomaaliya waxay ku maamaa rag wuxuu ku tashado aan carnaba ahaatay ceeb ma ah marka waxaynu ku tashanaynaa hawshaas aan qabsano waa la iloo bilaabayaa inaan wadano oo aan ilaga joojinina inaga falantaay aan u diyaar garowno ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo taamiyeelo dadkeena niyadooda iyo qalbigooda isu furo walaala isjecel oo shaqadaas ay wada qabsanayaan dhinac walba ka wada qabta Allah inaga dhigo aada u maasantihiin insha Allah taala culimada kale cidi wax ku daraysaa saas u ogaada qof walbana gaarsiiya hawshaas way bilaabanaysaa faatixadana soo akhriyo soo duceeyo habeenkii salaatu leelka dadka kacana ilaahay inoo fuudeeyo ku soo duceeya ilaahay ajri xasanad ha inaga siiyo ajirka laga helaayna waa janna lagu galaayo waa tii xadiiskan soo qaadanay إلهي دتك هوشاس انتي قبتين جنة كوغلا الله ينقدقو هذا وما سنتين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا أمورنا يا رب العالمين سهل لنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد بارك الله فيك وما سنتين